يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي mar kale kusoo dhawaada qaybtii aynu ku baranaynay English vocabulary oo ah erayada Ingiriiska kuwaasi oo aynu soo qaadano erayada loogu isticmaalka badan yahay luqadda Ingiriiska. Administration maamul. Admire ubogid. Admit qirasho. Admission ogolaasho. Adolescent da'da qaangaarida marka qofku uu qaangaar ku dhow yahay. Address khudbad sidoo kale waxay noqotaa ciwaan labada weyd. Adequate ku filan ama deeqa. Adjust hagaajin. Adjust la qabsasho qofku inuu meel ama nolol ama wax kale uu la qabsado. Waxaanu arki doonaa dhammaan erayadan iyaga oo ku jira jumlado. Administer maamulid. waa hagaag markaana waa erayadii hadda aynu soo aragnay oo jumlado la geliyay. tusaale halkan ka eeg marka. What is your address? waa maxay ciwaankaagu? The president madaxweynuhu addressed waxa uu khudbad u jeediyay the nation qaranka. He does not earn ma helo ama ma kasbado a large salary mushaar badan, but laakiin it is adequate way ku filan tahay for his needs baahidiisa way ku filan tahay. Could you adjust ma hagaajin kartaa the TV-ga ma hagaajin kartaa? He soon dhowaan adjusted waxa uu la qabsaday to his new life noloshiisa cusub in the town ee magaalada. He soon si dhaqso ah ama dhaqso adjusted waxa uu la qabsaday to his new life noloshiisa cusub in the town ee magaalada. He administers waxa uu maamulaa the finances dhaqaalaha ama maaliyadda of the company ee shirkadda. He administers waxa uu maamulaa the finance maaliyadda of the company ee shirkadda. Example 2 qaybtii labaad erayadii oo jumlado la dhexgeliyay. He is in charge of waxa uu mas'uul ka yahay administration maamulka at the hospital ee isbitaalka. I admire waan u bogay Ahmed's behavior dhaqanka Ahmed. I admire waan u bogay Ahmed's behavior dhaqanka Ahmed sida uu dhaqmaa. He admitted waxa uu qirtay that he was wrong inuu qaldanaa. He admitted waxa uu qirtay that he was wrong inuu qaldanaa. The admission ogolaanshaha of the university ee jaamacaddu is open waa u furan yahay. The admission ogolaanshaha of the university ee jaamacaddu is open waa u furan yahay. Ogolaanshaha ardayda la qaadanayo oo jaamacaddu ay ogoshahay sanadkiiba mar ayuu furmaa, jaamacadaha qaar 2 mar ayuu furmaa. Marka the admission of the university is open. Sometimes borarka inaad ku aragto ayaa laga yaabaa jaamacadaha. Adolescents often quarrel with their parents. Adolescents
dadka qaangaarka ku dhow often quarrel with waxa ay badanaa la murmaan their parents waalidkood. intaas ayuu casharkii ku dhan yahay maantay. saaxiibada qiimiga iyo qadarinta mudan ee casharkan uu soo gaaro waad mahadsantihiin. u sii sheergareeya walaalaha kale ee laga yaabo in uu wax uun taro ama ay ka faa'iidaan casharkan. adinkuna waad ku mahadsantihiin. inta aynu ku kulmi doono casharkan kiisa xiga, wixii tale, tusaale, dhaliil iyo toosin intaba waad nala wadaagi kartaa. amaana Allah.